waan idin jeedaa dhammaantiin ilaa ayaad qabtaan budad iyo baangada ayaana wadataan waxaadna rabtaan aniga inaad cadcad ii jartaa hase ahaatee wiilkiina saaxiibkiina walaalkiina ayaan ahay mar walbana raaligelin ayaan idinla daba taaganahay meel aan ku kala harnaan ma joogno ee saaxiibayaal markaan maadii cimaamadiin wiilkiina cimaamada ayaa ka dhacday aniga moohaas ayaan ahay xalaashii xaaraantan waa aan kala aqaanaa xumaan ma fiicno wanaagna wax ma dhibo wanaaga hore ii tuseen heerkaana igu soo gaarsiisan ayaan weli idinkugu ogahay saaxiibayaal ee muuqaalkan live-ta ku cimaamada moojar nagu magacaabaa waana hubaa sida aan aniga aaga helay inaad idinkana aaga heli doontaan hadduu eebba yidhaahdo sida caadaday noo ahaydna janaalkiin quruxsada oo sheerta iyo laygta iyo kommentiga iskugu dara saaxiibada cusubna waa aan soo dhawaynaynaa kuna soo bir moohaas official bilowga filimkana waxaana la barayaa wiil aad u yar oo sandiib lagu magacaabo islamar ahaantaasna waxa uu jeclaa in uu ka mid noqdo ciidamada qaaska ah ee dalka indiya xilli walbana aabihiisa uni krishna ayuu ka codsan jiray in uu geeyo goobaha bandhigyada ay ku sameeyaan ciidamada dowladda hase ahaatee jaceylka uu u qaba ciidanimada waxaa ka soo horjeeday aabihiisa iyo hooyadiisa oo waa ay diidanaayeen in uu ka mid noqdo ciidamada indiya walaashiisa sandiyaana dhankiisa ayay jirtay waa ayna ku taageeraysay waxyaabaha uu jecel yahay walaalkeeda si kastaba ha ahaatee muuqaalkiina dhowr sano kadib ayuu isku jarayaa waqtilxaadirkaasna waxaana la barayaa sandiib oo moohaas ka weynaaday anigan waa aan aamini la ahay oo sandiib hadda ayuu iga yaraay wax aan hal saac dhammayn sidoo iiga weynaan karaa intaasna waa iska kaftan aan idinkula kaftamayo saaxiibadeeyo run ahaantiina kaftankiina aad ayaa ugu xiisay maxaa yeelay idinka ayaa ah wax loo xiiso dhanka kale waxaana la barayaa sandiib saaxiibtiisa iisha ayaana lagu magacaabay asigan isgaagaad ayuu ku hayay iskuulka ayayna iskula dhigteen hase ahaatee wax lambar ah kama uusan haynin maalin maalmaha ka mid ahna asiga oo lambarka qoran rabo marka ay furaha nambarka u sheegto kuwa meesha joogeen ayaa ka daba qoranayeen islamar ahaantaasna waa uu arkayaa asigana waa uu joojinayaa meesha dhanna waa uu ka soo wadayaa si kastaba ha ahaatee sandiib iyo iisha marba marka sii dambayso saaxiibtinimadooda waa ay sii balaaranaysay aniga iyo idinkan marba marka sii dambayso famil balaaran ayaan sii noqonaynaa maxaa yeelay janaalkeena 10,000 ayuu ku dhow yahay waqtiyada soo socdan waxaa laga yaabaa moohaas official family in ay 10,000 noqdaan midaasina mahadcelinteeda idinka ayaa iskala saaxiibadeeyo mar walbana madaxa ayaad saaran tihiin aan usoo laabana muuqaalkeena sandiib waxa uu ahaa qof waxbarashada aan ku fiicneen oo walaashiisa sandiya ayaa ka fiicnay waxa uu waqtiga socdaaba ugu dambeyntii sandiib waxaa soo gaarayso warqadiisa ogolaashaha ee ciidanimada familkiisan waa ay la yaabayaan islamar ahaantaasna arrinkaasi waa ay ka xumaanayaan hase ahaatee go'aanka wiilkooda ayuu ahaa ugu dambeyntiina sandiib waxaa la gaarayaa xilliga uu bixi lahay hase ahaatee hooyadiisa iyo aabihiisa marna kuma aysan faraxsaneen bixitaanka wiilkooda balse sida uu raba ayay u yeelayaan waqtilxaadirkaasna waa ay fasaxayaan sandiibna waa markii ugu horeysay uu gurigiisa ka soo fogaanayo muuqaalka xiga soomaali waxay dhahdaa soo joog ninkii laga waayo soo jiif ayaa laga helaa sandiib iyo inta la midka ah tababar aad u adag ayaa u bilaabanayo hase ahaatee dhammaantooda waa ay ku qanacsanaayeen tababarkaas in ay qaataan midna kama uusan shalaynaynin soo bixitaanka uu gurigiisa ka soo baxay halkaasna viir iyo harish ayaan ku baranaynaa ayagana sandiib ayay cadaadis saarayeen maxaa yeelay dadaalkiisa ayay ku xumayeen il aragtana kuma aysan yeelin hase ahaatee sandiib iyo iisha mar walba warqad ayay ku sheekaysan jireen balse sandiib warqadda uu qoray oo keliya ayaa iisha gaari jirtay iisha warqadda ay soo qortana viir iyo harish ayaa dhexda ka qabsan jiray islamar ahaantaasna ma aysan gaarsiin jirin saaxiibkooda sandiib in muddo ah ayayna sidaas ku wadeen hase ahaatee asiga ma uusan fahmaynin mar walban waxa uu isweydiin jiray sababta ay iisha ugu soo jawaabi la'dahay taliyaha tababarka siinayay dhammaantooda hal su'aal ayuu weydiinayaa su'aashaasi oo ahayd waa maxay askari run ahaantiina sandiib aad ayuu u raadinayaa qof walbana waa uu weydiinayaa xitaa iisha waa uu weydiinayaa se ahaatee iisha muxuu ka weydiinayaa ilan jawaabteeda maba soo gaarayso oo dhexda ayaa laga qabsanayaa dhammaanteennana sandiib garab ayuu naaga baahan yahay maxaa yeelay jawaabta ayuu muxtaaj u yahay waqtiga sida uu socdayna viir iyo harish waa ay isdagaalayaan ilan viir waxa uu ogaanayaa harish wax walba inuu asiga keligiisa isku rabo ugu dambeyntii viir wadadii toosneed ee moohaskeeyo uu ku socday ayuu asigana soo qaadayaa qaladaadkiisa oo dhanna dib ayuu aaga laabanaya waqtilxaadirkaasna sandiib uni krishna ayuu u imaanayaa wax walbana sida ay u jiraan asiga ayaa u sheegayo islamarkaasna sandiib dhanka iyo harish ayuu soo aadayaa asigoo weliba xanaaqsan hase ahaatee markuu u imaado asigoo waxba ku samaynin keliya waxa uu ka codsanayaa warqadaha ay iisha u soo dirtay asigoo xanaaqsan sidaas ayuuna ku ogaanayaa warqad walba uu diro in ay iisha u soo jawaabi jirtay hase ahaatee viir iyo harish ay ka qarin jireen balse nin rag waa kii qaladkiisa qirtaaye ugu dambeyntii labadoodaba waa ay qiranayaan qaladaadkooda waqtiga sida uu u socdayna sandiib iyo inta la midka ahayd ugu dambeyntii tababarka waa uu u dhammaanayaa ayagana waxa ay ahaayeen guutada 51 ee ciidamada qaaska
NSG lagu magacaabo. hase ahaatee inta tababarka lagu jiray Sandeep ayaa ahaa ninka ugu fiican tababarka. mas-uuliyiinta dowladdan waxa ay ku sharfayaan in looga dhigo guutadiisa 51aad ee NSG taliyahooda. ugu dambeyntii muddo bilooyin kadib ciidamada 51aad ee NSG Sandeep iyo saaxiibadiisa fasax ayaa la soo wada siinaya dhammaantooda si ay guryahooda u aadaan familiyadoodana ay farxad ula qaybsadaan. muddo kadibna Sandeep waxa uu la kulmayaa familkiisa iyo saaxiibtiisa. hase ahaatee degdeg ayaa ku jiray waxa uuna rabay si dhaqsi leh in uu ku laabto. ugu dambeyntiina familkiisa arooskiisa ayay qabanqaabinayaan. asiga iyo Ishaana riyadoodii ahayd in ay maalin un isku tagaan waa ay u rumooweysaa oo waa ay isguursanayaan. dhanka kale waxaa jirtay qolo argagixisa Bakistaaniyiin ah kuwaasi oo rabeen Indiya in ay jab weyn u geystaan. qorsheen ayayna ku jireen ayagoona calaamadeysanayo meelaha ugu caansan ee dalka Indiya. Sandeepna ugu dambeyntii xeradiisa ayuu dib ugu laabanayaa. Ishaan waa ay iskaga baahneed hase ahaatee sharciga ayaa u diidayay in ay hal meel wada joogaan. muuqaalka xiga waxaan arkaynaa qolo argagixisa Bakistaaniyiin ah oo si dhuumaaleysi ah kusoo galayaan dalka Indiya. dhammaantoodna waa ay huweysnaayeen waa ay iskala qaybinayaan lablaba ayayna isku raacayaan. hase ahaatee booliska iyo shacabka Indiya cidna kuma aysan baraarugsaneyn in weerar culus lagu soo qaadi rabo. muddo kadibna waxaan arkaynaa ugu dambeyntii argagixisada oo si toos ah u weerartay dhismaha weyn ee Taj Mahal. halkaasna muwaadiniin iyo ajnabi fara badan ayaa joogeen. si kastaba ha ahaatee argagixisada gabaarida ay ka wada deganayeen dhammaantooda bambooyin ayay ku wada xireen. balse si toos ah darawalintii wadeen uma aysan dhihin waa aad iska bixi kartaan oo waxa ay dhaheen na suga dib ayaan idinkugu soo laabanaynaa. waxa uu waqtiga socdaaba ugu dambeyntii dagaal ayaa bilaabanayo. argagixisadana si bilaaxad ayay u baabi'inayaan shacabka halkaas ku sugnaay. boolis iyo military ka qabtana halkaas ma uusan joogin ayagana waa ay ku kortubanayaan. xitaa ay iyo nin indhoolo ah ma aysan cafinaynin. dhammaantoodna noolaha meesha ku sugnaay si arxandaro ah ayay oola dhaqmayeen. daqiiqadooyin yar ayayna ku qabsanayaan dhismaha Taj Mahal oo dhan. ayagana 8 qof ilaa 9 qof oo kale ayay ahaayeen dhismaha labaad ilaa dhismaha ugu sareeya ee Taj Mahalna ayaga ayaa gacanta ku dhigayaan. in yar kadibna goobtii boolis ayaa soo gaarayo. hase ahaatee waa ay ka adkaanayaan oo dhammaantooda dhulka ayay la jarayaan. argagixisadana waxa ay u eg yihiin argagixiso qaas ah oo tababar fiican la soo siiyey loona soo diray in ay dadkan masaakiinta ee Hindida ay laayaan. daqiiqadooyin ka horna dhismaha Taj Mahal sidan ayuu u qurux badnaay haddana waa sidaasi oo dhanna argagixisada ayaa u galeen. dhammaan inta meesha ku sugnayd cagta ayay mariyeen. inta soo hartayna waa ay wateen oo waa ay afduubteen. si kastaba ha ahaatee ugu dambeyntii militariga Indiya ayaa arrinkaasi maqlayo. guutada 51aad ee NSG ayaana lagu amrayaa si degdeg ah in ay isku diyaariyaan. waqti xaadirkaasna Sandeep familkiisa ayuu soo wacaya waxa uuna weydiinayaa in ay nabad qabaan iyo in kale. ayagana waa ay nabad qabeen aad iyo aad ayayna u nabad qabeen. waa ayna u sheegayaan waxa ayna kala dardaarmayaan wiilkooda in uu soo aado halkan. waxa ay diidanaayeen wiilkoodii Sandeep Uni Krishna in uu kaga dhinto dhismahan Taj Mahal. isagana waalidkiis waxa uu ku qancinayaa in uusan meeshaas argagixisada joogto uusan u soo soconin. waa uuna ku qancinayaa. dhanka kale guutada 51aad ee NSG diyaar ayay ahaayeen. Sandeepna waa uu ka mid ahaa. taliyahoodana aad ayuu u dhiirigelinayaa. waxa uuna ku dhiirigelinayaa shacabkooda in ay naftooda u huri karaan. xiradooda ayayna cagta ka soo qaadayaan ayagoo hubaysan una soo carfayo dhiigga argagixisada. dhanka kale argagixisada inta qolasha ku jirtay qolasha ayay ugu tagayeen waa ayna dilayeen cidna uma aysan naxariisanaynin. waxaana jirtay gabar aad u yar oo Shirley lagu magacaabo iyo aabaheeda ayay banaanka ku dilayaan. hase ahaatee ma aysan ogeyn gabadhiisa in ay gudaha ku jirto. halkaasna waxaan ku baranaynaa haweeney Bermuda lagu magacaabo. Shirley iyo aabaheedana waxa ay isku soo barteen banaanka Taj Mahal. isla mar ahaantaasna marka ay aragto Shirley oo aabaheeda la dilayo waxayna soo xasuusanaysaa Shirley in ay nooshahay ayayna ogaanaysaa oo gudaha ay ku jirto. isla mar ahaantaasna marka ay ka tagaan argagixisada ayay soo aadaysaa dhankeeda. ugu dambeyntiina marka ay aragto Shirley in ay nooshahay waa ay ka soo kaxaynaysaa qolkii ay deganaayeen. qolkeeda ayayna keenaysaa. muuqaalka xiga ugu dambeyntii ciidamada NSG waxa ay soo gaarayaan dhismaha weyn ee Taj Mahal. halkaasna boolis iyo shacab wariyaal aad u tiro badan ayaa ku sugnaayeen. wariyaashana wax walba oo meesha ka dhaco si daaragti ah ayay u gudbinayeen. tuugada argagixisadan soo direen wariyaasha Indiya ayay TV-ga ka fiirsanayeen. wax walba oo xog meesha ka dhacona TV-ga ayay kala socdeen. isla mar ahaantaasna wariyaasha ayay ka maqlayaan ciidamada NSG in ay halkaasi soo gaareen. ayagana waxa ay u sheegayaan intii Taj Mahal ku jirtay aad ayayna aaga digayaan in ay iska ilaaliyaan ciidamadan aadka u halista badan ee NSG. hase ahaatee NSG waxa ay rabeen kor iyo hoos in ay ka dagaalamaan oo isnaabara aad u halis badan ayay wateen. isla markii ay dhismaha lugta soo geliyeen howlgal ayay bilaabayaan. waxayna ku guuleysanayaan shacab in ay soo badbaadiyaan
badbaadiyaan ayaga iyo argagixisadana dagaal ayaa halkaas ku dhaxmarayo walow ay live aysan isku arkeynin dhammaantooda. wariyaasha hindidana wax walba waa ay u fududeynayaan argagixisada oo waxa ay TV ka sheegayaan ciidamada NSG in ay dhar madow wataan. waqti xaadirkaasna argagixisada dhar madow ayay xiranayaan ayagoona mitilayo ciidamada aadka oo halista badan ee NSG. dadka ayayna guryahooda ugu tagayaan ayagoo ku dhawaaqayo NSG ayaan nahay, waxaan rabnaa in aan idin badbaadino. markii iridda laga furana baas ayay ku jeexayeen. hase ahaatee midaasi ciidamada dowladda ayaa ogaanayso. NSG-na marka ay maqlaan aad ayay u xanaaqayaan. Sandeep Unikrishna ayaana dibadda u soo baxayo. ahaantiina cilka uu argagixisada u hayo waxa uu kala duldhacayaa booliska iyo wariyayaasha goobta ku sugnaayeen. dadka intooda ugu badanna ciidamada NSG waa ay ka soo saarayaan dhismaha qaybtiisa sare. sida uu waqtigu u socdayna Sandeep Unikrishna waxa uu ku khaldamayaa mid ka mid ah argagixisada asigoona u maleynayo shacab. waxa uuna rabay in uu badbaadiyo waa uu soo wadayaa. hase ahaatee ugu dambeyntii waa uu ogaanayaa in uusan ahayn shacab caadi ah. halkaasna labadooda dagaal qaraaran ayaa ku dhex marayo, gacan ayayna isla aadayaan. hase ahaatee Sandeep waa military aad u halis badan, tababar fiicanna wata. mid ka mid ah argagixisadiina waa uu ka adkaanaya asigoona baarka aaga dhacay. si kastaba ha ahaatee ugu dambeyntii waa uu ka baxsanaya. dhanka kale argagixisada qolkii ay Bermuda degneed ayay dib ugu soo laabanayaan, waa ayna soo galayaan. halkaasna aad ayay uga shakinayaan. run ahaantiina qolka oo dhan ayay baarayaan. Bermuda iyo gabarta yar ee Charlie-na laba meel ayay ku kala dhuumanayaan. iyadoo la arki rabana waa ay ka badbaadaysaa. meel aad u halis badan ayayna ku dhuumanaysaa. in ay nafteeda weyso ayayna ku dhawaanaysaa. ugu dambeyntiise argagixisada abaartigii Bermuda ay degneed waa ay kasoo baxayaan. sidaas ayayna ku badbaadayaan Bermuda iyo Charlie. dhanka kale ugu dambeyntii ciidamada NSG waxa ay go'aansanayaan argagixisada meesha ay ku jireen in ay ugu tagaan. Sandeep iyo guutadiisana waa ay ka go'need in ay soo badbaadiyaan shacabkaasi meesha ku xaniban. naftoodaba haddii ay ku waayaan diyaar ayay u yihiin. ayaga iyo argagixisadana si live ayay isku qabanayaan. waqti la xaadirkaasna 3 argagixisada ka mid ah ayaa halkaasi la dhigaya. run ahaantiina argagixisada aad iyo aad ayay u xanaaqayaan. hase ahaatee ciidamada NSG waxaa caabinayeen snaybarada kor u saaran ayaga. dhammaana shacabka ay gacanta ku hayeen argagixisada waa laga soo badbaadinayaa. hase ahaatee Sandeep dhaawac yar ayaa dhunta ka soo gaarayo. doctoreesada asiga dhaawac ka daaweynaysayna waxa ay u sheegaysaa haddii ay xabadda wax yar dhunta u sii gali lahayd in uu naftiisa ku weyn lahaa. isla markaasna taleefankiisa ayuu ku arkayaa Isha oo dhowr mar soo wacday. asigana waa uu dabagalayaa, waa uuna wacayaa. isla mar ahaantaasna markii ugu horeysay muddo kadib Isha codkeeda ayuu maqlayaa. ayadan waxay la wadaagaysaa waxyaabaha ay ka tabanaysay asiga, xitaa in ay isbitaal gashay waa ay u sheegaysaa. asigana ay garab aaga baahneed. hase ahaatee waqti xaadirkaas ayada in uusan garabkeeda ahayn. waxayna leedahay markii aan yaraa, xitaa markii aan iskuulka dhiganayay keligey ayaan ahaa, ilaa iyo haddana keligey ayaan ahay. adigana booska lagaa rabay kama aadan soo bixin oo wehelkayga ma aadan ahayn xilligii aan isbitaalka ku jiray. run ahaantiina Sandeep aad ayuu aaga xumaanayaa qaabka ay oola hadlayso, waa uuna qiranayaa qaladkiisa. hase ahaatee uma sheegayo in uu dagaal ku jiray, uuna ka mid yahay ciidamada joogaan dhismaha weyn ee Taj Mahal. Sandeepna asigoo la hadlayo Isha ayaa loo sheegayaa gabar aad u yar oo naqaska ku dhegdhegayo iyo habeenay in ay ku xabisan yihiin meesha ay argagixisada joogaan. run ahaantiina Isha hadalkaasi ayay maqlaysaa, waa ayna naxisaa. waxa ayna weydiinaysaa Sandeep in uu joogo dhismaha weyn ee Taj Mahal iyo in kale. asigana waxa uu leeyahay hadda hadal badan kama gaaro, haddii aan noolahay dib ayaan u soo laaban doonaa. hase ahaatee haddii aan geeriyoodo iska kay cafi. qaladaadka aan kaa galay oo dhanna ku ilo wanaagii aan kuu soo sameeyey. isla mar ahaantaasna taleefanka ayuu ku jarayaa. isla markaasna taliyihii asiga ka sareeyay ayuu u sheegayaa dhibaatada kor ku haysato gabadha yar iyo habeenayda. wuxuuna ka codsanayaa in ay soo badbaadiyaan oo ciidan daba raaciyo. hase ahaatee taliyaha waa uu ka soo horjeesanayaa fikirka Sandeep Unikrishna. waxa uuna leeyahay hadda ayay ciidan halkaasi iga dhaawacmeen, mana rabo cid kale in ay iga dhaawacanto. weerar kalena waxa aan qaadi doonaa beritoole marka ay qoraxda soo baxdo. ugu dambeyntiise Sandeep waxa uu go'aansanayaa in uu keligiisa soo baxo. keligana ciidamada waxa uu ka codsanayaa in ay ka dabxiraan. taasi ayaana dhacayso. Sandeepna keligiisa ayuu weerar soo qaadayaa. burcadana mid mid ayuu ula dagaalamayaa dhammaantooda. asigan waxa uu gaarsiinayaa heer ay dhahaan imise ciidan ayaana la dagaalamayso. mid ka mid ah ayaana dhahayo waa hal keli. ugu dambeyntiina Bermuda iyo Charlie ayuu u tagayaa. labadoodana aad ayay u cabsanayeen. hase ahaatee ugu dambeyntii halkaasi waa uu kasoo kaxaynaya. balse saddexdooda in ay meesha kasoo wada tagaan macquul ma aysan ahayn. in uu noolaadan waxa uu ka doorbidayaa in ay noolaadaan Charlie iyo Bermuda. ayaga ayuuna soo dirayaa. asigana burcadii ayuu la dagaalamayaa. mid mid ayuuna u ugaarsanayaa dhammaantood
dhammaantoodana hal meel ayay isku imaanayaan. naqaska ayuuna ku dhejinayaa. hase ahaatee ugu dambeyntii Sandeep xabad ayaa lagu dhufanayaa. dhammaantoodan waa ay iskugu tagayaan. waxa ayna aaminsanaayeen asiga keligiisa inuu yahay ayna dili karaan. hase ahaatee Sandeep sida ay moodeen ma uusan noqdin oo mid mid ayuu iskaga celinayaa dhammaantooda. dagaal qaraaran ayaana halkaas ku dhex marayo walow Sandeep dhaawac daran loo geysanayo, balse argagixisadii qaar ka mid ahayd oo dhan dhulka ayuu la jarayaa weliba keligiisa. laba argagixiso oo keli ayaana kusoo harayso dhismaha Taj Mahal. mid ka mid ahna qolada snaybarada ayaa si xun u dilayaan. xaqiiqdiina Sandeep daal aad u weyn ayaa ka muuqday, isla mar ahaantaasna dhulka ayuu fariisanayaa. dhaabacyo aad u fara badan ayaana ku yaaleen. mara yar oo hooyadiisa xusuus ahaan aaga soo qaatay ayuu dhulka kasoo qabsanayaa. ciidamada intooda kalena qaybta hoose ayay joogeen. ugu dambeyntiina waxa uu nafta dhaafinayaa midkii ugu dambeeyey ee kasoo haray argagixisada. haatana waxa ay u muuqataa Sandeep Unikrishna dhammaan argagixisada in uu laayay. hase ahaatee dhaabiciisa aad ayuu u darnay, waa uuna xamili waynayaa in uu socdo ama uu istaago. aabihiisa iyo hooyadiisa iyo xaaskiisa ayuuna dib usoo xasuusanayaa. wejigiisana xanuunaadka ka muuqda jirkiisa waa laga dareemayay. waxa uu waqtiga socdaaba. ugu dambeyntii Sandeep Unikrishna halkaas ayuu naftiisa ku weynayaa. marka ay qoraxda soo baxdana ciidamada intooda kale ayaa kor soo fuulayaan. halkaasna waxa ay ku arkayaan Sandeep oo dhammaan argagixisadii dhulka la jaray. hase ahaatee asiga naftiisa ku waayay. aad ayayna aaga xumaanayaan marka ay arkeen taliyahooda in uu meesha ku geeriyooday. dhanka kale wariyaasha si degdeg ah waxa ay kusoo gudbinayaan geerida Sandeep Unikrishna. halkaasna hooyadiisa iyo aabihiisa ayaa ku arkayaan. ayagana waa ay aamini waynayaan marka ay arkeen geerida wiilkooda. Master Unikrishna waxa uu u haystay wiilkiisa in uu xerada kusoo haray. hase ahaatee naftiis waxa uu u huray shacabkaasi. hooyadiisa naxdinta ay ka naxday geerida wiilkeeda waxa ay ku dhawaanaysaa in ay nafteeda ku weyso, balse Unikrishna ayaa badbaadinaya. labadoodana xaqiiqdii waa ay aamini waynayaan geerida wiilkooda ku timid. si kastaba ha ahaatee Sandeep Unikrishna gurigiisa ayaa la keenayaa asigoo meyd ah. xaaskiisa Ishana halkaas goobjoog ayay ku ahayd. aad ayayna aagu xumeed geerida ninkeeda ku timid. wiladooyinkiisa dhammaana iyada ayaa farta laga saaraya. xitaa walaashiisa Sandiya halkaas waa ay joogtay, iyadana geeridiisa aad ayay aaga xumay. si kastaba ha ahaatee Sandeep Unikrishna aas qaran ayaa loo sameynayaa. dhammaana shacabkii Indiya ku noolaayeen bar oo bar waa ay kasoo qayb galayaan. run ahaantiina aabihiisa aad ayuu ugu faraxsanay sida wanaagsan ee loogu istaagay wiilkiisa. ugu dambeyntiina muuqaalkan waxa uu ku dhammaanayaa adiga oo muuqaalka like saarayo, siina share gareynayo, janaalkana kusoo biirayo. anigana aan aad ugu farxayo inta aan kaga kulmeyno muuqaalkan muuqaalka xiga. nabad iyo warsan saaxiibadayo.